qorraxda ayaa ceeriyoon madow isku dahaaday ilaa ay noqotay boog madow. caalamkoo idinla waxaa qarqoomiyey baraf dhalaalay, meelo kala duwanna waxaa ka qarxay foolkaane. intaasoo dhan waxay dhacday sanad keliyaata gudihii. bini'aadamkana waxa uu ku sigtay inuu cidhib tirmo. waxaan idiin haynaa idiinna soo tamin doonaa sheekada sanadkii ugu darnaa ee soo mara meeraheenna. haddii qofku weydiiyo su'aalaha waa kuma sanadkii ugu xumaa ee taariikhda bini'aadamka soo mara, waxaa laga yaabaa inaad hesho jawaabo tiro badan. qaar waxay kaaga warramayaan sanadkii 1347 markii cudurkii daacuunkii madoobaa uu galaaftay nolosha 200 milyan oo qof. kuwo kalena waxay kaaga warramayaan sanadkii 1918 xanuunkii influensihii Isbaanishka ahaa markii ay u geeriyoodeen 100 milyan oo qof. halka laga yaabo in qaar kale kugu jawaabaan intii lagu guda jiray sanadihii dagaalkii labaad ee adduunka, kaasoo ay ku dhinteen 60 milyan oo qof. dhinaca kale waxaa mid niyad jabsani u haystaa in sanadka 2020 uu yahay sanadkii ugu darnaa ee taariikhda soo mara, ama in uusan weli imanin sanadkaas. balse run ahaantii kii darnaa uu yimi oo tegay gaar ahaan 536 ee miilaadiga. sanadkaasi wuxuu ku sigtay in bini'aadamku cidhib tirmo isagoo dhammaystiran, hadduusan naxariista alle ku soo galadin mooyaane. sanadkii tobnaad ee xukunkii boqorkii Byzantiniga ahaa ee Great Justinian ma ay jirin wax laga cabsi qabo sanadkaas, marka laga yimaado khilaafyadii u dhaxeeyay dawladaha iyo dagaaladii ka dhex xaloosnaa qabiilooyinka iyo shakhsiyaadka. waqti ay sugayeen beeralaydu goosashada dalagga bisil, xilli la galay habeen xagaa ah, wixii ka dambeeyey ma aysan imanin maalin. gudcur madow ayaa ay dunidu gashay, qorraxdana waxaa isku daboolay walax mugdi ah. heerkulku waxa uu bilaabay inuu hoos u dhaco. roob googoosa ayaa soo daatay ugu horrayntii, kadibna waxaa soo rogmaday mawjado baraf ah. dhulka boqorka Byzantiniga ah oo keliya ma ay haleelin, ee waxay ku fiday halka iyo Shiinaha. masiibadan mid ka daran waxaa isla waqtigaasi ka dhacday labada qaaradood ee Ameerika. waxaa burbur dhammaystiran ku dhacay dalagii beeraha, dadkuna waxa ay cunaan ma ay haysan. bini'aadamku waxa uu galay xaalad daran oo gaajo ah. si ay uga sii dartana, meel kastoo uu gaadho barafku biyihii waa ay ka engegeen. ma jirto cunto, biyana ma yaalliin, wax nolosha caawiyaana lama heli karo. koonfurta Ameerika xadaarad la oran jiray Moodshi waa ay baabaaday, kamana ay hadhin ilaa xardho ka warramaya sheekadooda. meelo kale oo dunida ka mid a waxaa la awoodi kari waayey in la tiro koobo meydka. kii ka xumaana weli muu iman. kadib barafkaas iyo burbur dul hadheeyey meeraha oo dhan, cudurka daacuunka ayaa ku dhuftay Yurub iyo Bariga Dhexe, wuxuuna galaaftay nolosha malaayiin ruux. waxaana loo bixiyey daacuunkii Justinian, iyadoo loogu magac daray boqorkii xilligiisii masiibadani dhacday. haddaba waayo sidee maxaa sababay inay dhibaatadani dhacdo? marka loo eego warqaddii raadraaca ee ay diyaarisay jaamacadda Harvard ee Maraykanka oo ka warantay dhacdadan, islamarkaana uu kormeeray taariikhyahankii qarniyadii dhexe Michael McCormick, waxaa qaraxyo foolkaanaha ay ka dhaceen cidhifka koonfureed, kuwaas oo qaacoodii ay u suurto gashay inay dahaadh madow ku sameeyaan iftiinka qorraxda. waxaanay horseedeen in heerkulka dhulku hoos u dhaco, iyo cimilada oo qasantay ay waddo u furtay masiibadan. warkii dhiilada lahaa ee bini'aadamku maqlana waxay ahayd qaraxyadii foolkaanuhu in uusan weli istaagin, taasoo dhulka ka dhigtay mid cabanaya 100 sannadood in ka badan. intaa dabadeed si la isku weydiiyo, sidee ayaa dhulku ku soo ceshtay caafimaadkiisii? 4 sano uun kadib markii dhibkani uu dunida haleelay, waa sanadkii 536, qaab dheelitiran aayar ah ayuu dhulku galay, iyadoo qorraxduna ay tartiib u dhalaalisay barafkii arlada dul fuulay. dabadeed webiyadii ayaa mar kale qulqulay, buurihiina muuqaalkoodii caadiga ah ayay soo ceshteen, taasoo ka dhigtay in macdan badan oo barafku qariyay ay soo baxdo. goordhow bini'aadamku wuxuu uga faa'iidaysan doonaa dib u soo celinta dhismaha noloshooda. iniintii waxay damacday in ay biqisho. muddo 100 sano ah ayaa ay ku qaadatay dhulku inuu ka soo kabto burburkii haleelay. sida ay taariikhyahanadu inoo sheegeenna, bini'aadamku waxa uu ku noolaaday barwaaqo sooran sannadadii ka dambeeyey. arrinta biyo kama dhibcaanka ah ee isla qirsan yihiin aqoon-yahanadu ayaa waxay tahay in dhulkeennu alle iidankii karti u leeyahay inuu soo ceshado noloshiisa xataa haddii uu xoog u burburo, dadkana ay yididiiladooda ku abuurto in noloshu aysan istaagi doonin ilaa goorta uu alla idmo maahane. fikirkaaga botonka eray bixinta noogu reeb. hadduu ku cajabiyey muuqaalkana subscribe saar si muuqaal kasta uu ku soo gaadho.